نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. Any brother? showga kadib waxaan aqriyay qoraal uu ku soo qoray Twitterkiisa Shahrukh Khan oo uu ku sheegayo inuu arrimaha qaar adiga kala hadlay. wuxuuna yiri showga kadib dood yar ayaan la yeeshay Dr. Zakir Naik waxayna ahayd mid aad u faa'iido badan. marka waxaan rabaa inaan ogaado waa maxay hadalkaas faa'iidada leh ee dhexmar adiga iyo Shahrukh. markii barnaamijku dhamaaday kadib waxaan la hadlay Shahrukh Khan muddo ku dhow nus saac waxayna ahayd tijaabo aad u wanaagsan. wax walba ka hadalna hadda ma sheegi karo sababtoo in badan oo kamid ah waxay ahaan arrimo gaar oo shakhsiyadeed anaguna muuqaalkan ma baahin doonaa. waxay ahayd markii ugu horeysay oo si shakhsiyan ula kulmayo iyadoo ay jirto inaan saaxiibo wadaagno yacni aniga dad taageerahayga dad taageerihiisa ahba laakiin markii ugu horeysay ahayd oo shakhsi ahaan la kulmayo waxaa jira shay aan hubanti anigu aan ku faani karo oo ah inaan ilaaliyo siyaasadayda waana inaanan ku kalsoonaan wararka la ii keeno. showga ka hor waxaan rumaysanahay dad badan ay og yihiin in warbaahinta laga soo daayo sidoo kalena ay leeyihiin dad badan oo kamid ah saaxiibada Shahrukh Khan muslim multazima diinta ku toosan maaha sidoo kale islaamka kuma faraxsana sidoo kale markasta wuxuu ku hadlaa hadallo ka soo horjeeda islaamka waxyaabahaas iyo waxaas ayuu sameeyaa. aniga shakhsi ahaan arrimahaas kama maqlin telefishinka sababtoo ah telefishinka wax yar baan daawadaa balse wararku ay iska badnaadeen. anigu waxaan raacay aayadda quraanka ee Allah ku leeyahay suuratul xujuraat suuradda 49aad aayadda 6 haddii mid faasiqa war idin la imaado iska hubiya. waa sida aan sameeyaba mar walba oo qof markuu ii weydiiyo ra'yigayga ku aadan shay gaar ah tusaale barqadaad gabadhaas wariyaha markii weydiisay arrinta ku saabsan Usama bin Laden waxaan arrimo garanayo sidoo kale haddii arrimo xun iga soo gaaraan Shahrukh Khan waxaan leeyahay ilaahay un baa laakiin barnaamijka wixii aan ku maqlay anigu kama hadlayo hadallada la isdhaafsan inta showga la joogay laakiin wixii aan ka maqlay showga waxaan dareemay iyadoo aan la eegayn ma yahay qof diinta ku toosan ama aan ku toosnayn laakiin waa ka jawaab wanaagsanaa in badan oo kamid ah muslimiinta oo jooga showgaas marka laga reebo Maxamed Majdi waa saaxiib ii dhow ma sha Allah waa muslim diinta Ilaahay ku toosan. arinta dhinac inooga dhig ee jawaabaha uu bixinay markuu showga joogay waxay ahaayeen jawaabaha ugu wanaagsan marka la barbar dhigo muslimiinta kale halkaas joogtay. waan igu waafaqsan yahay si cad in heesaha iyo jilitaanka filimada iyo qoobka ciyaarka dhammaan ay xaraan yihiin laakiin inkastoo arrinta isagu samaynayo way la wanaagsan yihiin. wuxuuna ii sheegay in cilmigiisu liito sidoo kale wuxuu igu yiri si aad cilmi badan u hesho waa inaad culimada iyo shuyuukhda aad weydiisaa. sidaa darteed jawaabihiisu aad bay uga wanaagsanayeen jawaabaha dad kale oo muslimiina oo showgaasi joogay. showga kadib waa ii yimid wuxuuna igu yiri iyadoo laga doodayo barnaamij ku saabsan hawiyada muslimka ama qof halku ka soo jeedo wuu i weydiiyay Dr. Zakir Naik waa maxay ra'yigaaga ku aadan muhiimadda ay leedahay in garka la sii daayo koofiyadda sunnadana la xirto. sidaa darteed waxaan awood u yeeshay inaan tusaalayaal siiyo barnaamij wada sheekaysiyo telefishinka ma ahayn sidoo kale ma joogin gabadha wariyaha ee barqadaad. sidaa darteed awood baan u yeeshay inaan walaal Shahrukh Khan wax ugu sharxo iyadoo cid hadalka iga jaraysa ay jirin. tusaalihii oo ahaa markaad imtixaan galayso waxaa jira su'aalaha qaar isku darajo ah kuwana waa 10 darajo kuwa kalena waa 20 darajo. haddaba qaabka muslimka gar ha lahaada ama koofiyad sunnaha xirto inkastoo aysan ahayn muhiimadda kama dambaysta ah haddana waa muhiim laga yaabay in u dhiganto 1 darajo laakiin isla dhaqankaasi adigoo ka run sheegaya noloshaada caadiga ah iyo ku hadlidda xaqa arrimahan islaamka marka la joogo markaad joogtaynayso laga yaabay in u dhiganto 10 darajo ama 5 darajo. sidaa darteed iyadoo garka in la daayo aysan ahayn shayga ugu muhiimsan ee islaamka haddana waxaa kuu suuragala inaad darajada koobaad ka tagto oo aad xoogga saarto 10 darajo iyo 5 darajo ama 20 laakiin qof hadduu doono inuu gaaro darajada sare isku dayi doonaa inuu xitaa darajadan tusaale markaad galayso imtixaan kuliyadda caafimaadka inagu waxaan isku daynaa inaan darajada barkeed sababtoo ah waxaan doonaynaa inaan xaqiijino wax ka sarreeya 90% marka aad doonayso darajo ka sarreysa 90% arrintaas aad ayay muhiim u tahay. garku waa muhiim koofiyadda sunnadana waa muhiim labaduba waa qayb ka mid ah sunnada laakiin midkood hadduusan garkiisa daynin ama koofiyad sunnaha uusan xiran suuragal inoo maaha inaan dhahno muslim maaha suuragal maahan inaan dhahno muslim maaha sababtoo ah garka siima daysto ama koofiyad sunnaa ma xirto. markaa buu yidhi tusaale aad u fiicnayd ii sheegtay tusaalaha ayaa cajabiyey waa muhiim laga yaabay in u dhiganto 1 darajo ama 2 darajo laakiin muhiimaddu waa in islaamka ku dhaqantaa. arrimaha kale sida inaad rullow ahaato salaad inaad tukato inaadan shirki samaynin dhammaan arrimahan aad ayay muhiim u yihiin waana sidaas jawaabteeda si aan ku sheegaba showga haddii qofkood aanu dayn garkiisa iyadoo ka mid maahan dembiyada waaweyn ee 70-ka ah. waxaa jira caalim lagu magacaabo Imaamu Dahabi wuxuu kitaab ku qoray liis dheer oo dembiyada waaweyn ee 70-ka ah shirkiga ugu horeeya kadibna qof inay xaqdarro ku disho ilaa aakhirka laga gaaro laakiin garku ka mid maahan taasina macnaheedu maaha inaysan qalad ahayn in garka la jaro. culummada qaar waxay leeyihiin waa sunno
qaarkoodna waxay leeyihiin waa waajib inaad garka sii dayso si kastoo ahaataba laguma tirin dembiyada waaweyn ama waxay noqonaysaa dembi yar ama waxay noqonaysaa sunno aad muhiim u ah laakiin dembiyada waaweyn kama mid aha waxaan rajaynayaa inaan su'aashaada ka jawaabay